nimankii reer samantaraha oo reer sanduubaha oo geelasha badnaa waa ay ku dhici waayeen in la dhaco bay ka baqayaan warsangeli iyo isaaq iyo dhulbahanta wada taal oo dhan inay dhacaan bay ka baqayaan ninka hadee ergada u tagi jiraan waa ku wixilay waxa kale too jiray nuux dhagay inuu ahaa nin ergatoria oo meeshii wax laga dhaco ama majeerteen laga dhaco ama warsangeli laga soo dhaco ama dhulbahanta laga soo dhaco qolo walba inuu ergada raaci jiray in masaalaxa jecel waa nin walaadana waa nin gabayana waa marka in laga dhacay geel niman isla iyaga aha oo reer samantar yusuf ka ahaa reer sanduub la yiraahdo qolada cafi cali xaqari hiirad cali qoto sheeyo qolada markaasa ladiyeen ilaa wa ilaa waa inaad geeri raacda oo geeri aadaada faras bana waa ku siinay faras geeya daba jooga oo gabana wuxuu ku xirtay qoona ku xirtay qoorta kaga xirtay faraskaasan leh dangeen soo yeesho oo la isoo ogolaa waa yahibaani ballan baa la kala qaaday marka waa tegay wuxuu ku horamaray xira warsangeli oo wuxuu ka xaytay sodongiis garaadkii maxamuud cali garaadaha dhulbahanta la aad dhulbahanta nugaal loogu tegay nugaal weyn idali markaasa la waystay ergo ruuga la isula nin la oran jiray Saciid Qamax oo kibri oo dhulbahanta ah waaba uu ku yaqyaq oo yeen koobta maraare mayro idira laguma maleene mirihi kabay kama cunteen maraha bayaale haddaan habar ma jeerteen murkucan mure ma dhiiqdeene markabkii ku jaabay jiidaran maraxa ka haytaaye aan magawsho awaafacoy macaantahoye geelu diilaya marka baaba igu jabay geeran ma jeerta habar ma jeerteen ka soo helay habar ma jeerteen waxaa la isku yiraahdaa ma jeerteen iyo warsangeli iyo muraad marka halkaas ma u diidayo gababe ma ugu daray iyo allah wax xulay biishaan markaas uu gabay oo wuxuu yiri orol ma yareeyay hadii mayra la eryoone albar maray manaman ka baxay miciigi dheeraaye magaalooyin baan soo dul maray maantii orodkiiye markabkii iyo baan muusay iyo mugucuyadii qaare mudka reer cigaal baan mutiyo magacaya weyntiiye sooryaadu muddaynoo ahayd la iska mijaaye meleg lexe jeclaa laga dhigo manka ka gadaaye haddii ani iyo maxamuud la diro duniiba maarowye dadyaysmari dadyaysmudan dadyaymuuno kala raaceen maslaxna yow dhex noqon laba qolo wixiis lamaan weyday maraxna maaw damayaa hartiga maantay kala guure oo wuxuu leeyahay aniga iyo sodogaygii maxamuud cali garaadaha oo warsangeli ahayo garaadka mudana iyo aniga oo ergatoore ah oo xoolaa laydinka soo dhaco qayb libax ka qaadan jiray oo idin ceedan jiray haddii labada yadaa maanta la isku daro aan xoolaha la celin dab yaa dambe kala qaadan doona bah ma jeerteen iyo dhulbahanto hartiga maanta labada qolo wax kala waxay soo celin doontaa xagee bay ka soo bixi doonaa halka haddii xaalku joogay dheg looma balafsin dheg looma bala berri waa la qiyaa saa dambe bal haddayba hebel baa maqan bal haddaynu ogaana bala maalinta dambeetu tixatan tishigaa kaya haddayreen miyaa kacaakani muuqday kalkaanimi kalkiisii miyaa kaabigay saare ma baqa ladhiba ka wiray kiraada doonaaye duqaandaba kashlayn jiray miyaa haatan kaaba beele karmihii miyaa naga ledhan karaan awood weyne dumarkaan horkuududay miyaa saaka ka hanaya kud hallaayo geelaanu imi maanta karamaane iga kece kuwii mayra helay laga kaaxay waaye markaasaa nin odaya oo abdaala oo indhala
ومن داد الرياضيس صدق بقول أن ننتهي وحير ننكاسو ننعلو الوين ومدح وين ميحي هاهبا لين ninkaasu inaynu majeerteen kala goono oo maantay la dilo oo aan waxba la siin iyo in xoolihiisi harag fujis loogu celiyo wax ka dhaxaya ma jiraan hebel mee oo ragay ama uu dhalay ama uu adeeru yahay ama waka markaasa la doonay xoolihii baa la soo celiyay geeli baa waxaa wiil calinaalaya ah oo baxrig haya ah oo kibri 20 halaad oo ay ku jirto meyrahooda ololmaanyaleeyay haddii meyra la eriyo hasha uu leeyahay meyrahooda oo geela foolaadu ah uu la haray markuu arka meyrahooda inay maqanto geeli tiri masalan geel 20 yaba maqan markaasa uu tixatan kale ku cesh oo wuxuu yiri jeedalin guto horisto heganku israafo geba in hilib lagu dubo gabay ka hooyaalo inay waaya baanan hawato deero ka hiflayso in haraag ka dhooco maaliga hora la doonaayo oryahuwiga lintaliyo shalka la hagoojey heryahurudale barnida lagu hareereye isla joogta harawaasato hebed ku doryaayo balliyada haraaciyahayay hogad ka nugayso hartiyado waxay hawl qabeen wayska hurudeen wahodo ninkii nabaadka helay habar ma jeerteene waxse ogay nimay guutadiis daba haashlaysaye marka hore haleelaanihiyo hebeed la maalaaye hayin lagu gurgurtaan oho haamihii sidaahe kol haddaan hinqado duniya duba wahangalataaye habeedayran jeexiyay hogan washar hoosimaane allowya halkeedii ku celin waa hadloogoe hengihii hafooriyahayay horaa u duulayse nirigtay haraatiyahayyo ulu ku halyaye hadba waxaan hibta mayrahoodabi loo helaaye habeedayran jeexiyay hogan washar hoosimaane allowya halkeedii ku celin waa hadloogoe nin hareeraday haysiriyamase haneede wabayuu henheensaadiyo hilib dhunkareede mawaanala ka haysanahayaa wahungurijaane hogaane raggii kacayintanay hurinin baarudaa intaynaan hareeraa ka gubaan harowgaayase markii la arkay nimaan laabmayn inuu yahay oo ku qacnayn wax lagala kala haro iyo wax la qadoodi midna uusan ku qanayn markaasaa inta 20 walaalihiisa iyo ilmaadeertiisii farda u shuuleen 20kii halaad laga soo gooy geel iyo aan irigi ka maqnay ayuu wuxuu u keenay reer samantar wuxuu joogaba maalintii dambeetu faraskii afar jirsaday wuxuu damcay inuu qabsada oo dhal fuula markaasaa cari qotush qoorihii ka gooy oo wuxuu yidhi weligaaba ha fuulin duuse ku tukale yaa faraska ku siiyey nin sabur badan buu ahaa way iska daayey nuur cismaan oo ay ooriyo walaal yihiin baa maqlay oo dahaba garaad qaba kana bulla garaad yahay cid buu fariin usoo faray wuxuu yidhi ha yimaada nuur dhegay reer sardhum maanta waa loo dhacayaay geelaba isagaa dhulbaxanta ka soo ceshadeen mayaga lah hadday shuruudii ka baxeen dan kama uu yeelan ee wuxuu yidhi gabaga kan ayuu tiri oo wuxuu yidhi dheehoy haddii lagala tegay dhega reer samantar cali dheerii jiray haddii dhiga laga daajay ma dhintiyo ma noolaa haddii la isla dhaafayey
dhooyaalka beeneed haddii dhimaasha loo daaye dhunkayga maye haddii dhegaan rag loo waayay ma dhifsadey war muuhu wayagii dhigaha saraaye waxaan waaya badan sii dhaxoo dhaxanta jifaaba dhegfadhaa la leeyay hadday caaramiire dhaaftay ugaas dhaaban baa lagu heliyo dhawashaa ilaahe gabay baan ku soo dhirin dhirshiyo labada dhooloodee ma soo dhinac arruumay wayagii dhanshaynaagaa xaladheela labadii hurdada uma dhibaatoone dhulka meelahan seexan jiray dhinuucu waa diiday dhafoorka iyo dhaamankan qabto wayska dhaacadiiday lafta dhabar garkiiyo biixii waan iswada dhaafshay sidaan dhawri bahal baan waqay dhaxantii soo jeeday ashkiir dhahar hunguri loola dhacay waaba dhaygagaye ilaahow dibadana baa layga dhaca maantay maxaasey ka dheefaantolnima dhimatay weeyaane nuulaya waa dameeto maxaan marakan ka raba waa dameeto haddii la dhaco iyo haddii kale ayaan tolnimo noo dhaxaynoo aanan u raacayn adduunka waxwadahe dhowr sano ka bacdi ayaa dhulkii majeerteen degi jiray abaar noqday dhulkaas inta ilila booxaarood loo gaaro iyo carmooyin iyo xadeed iyo ka kor ayaa roob qabtay nuur dhegay waa nin afarta harti la daaqi jiray isagu markii u horraysa toddobkii u horraysa ku raray xoolihiisii geeliisii awrkiibaa toddobkii ku darmay amiladiina waa uu ka heegay fushadihii iyo kulli xero majeerteen abaar bay noqday nimankii reer samantar ahaa oo reer sandhuub ahaa oo geelasha badnaa waa ay ku dhici waayeen in la dhaco bay ka baqayaan warsangeli iyo isaaq iyo dhulbahanta wadataal oo dhan inay dhacaan bay ka baqayaan ninka haddii ergada u tegi jirana waa ku wixulayey markaasay samaysa dheer baxaaro sarkeeda intay degeen waxay damceen inay habeenkii geedaha kusoo miraani waxba alle wax uga dhigi waayo geelii nuur dhegay oo intuu xagga cadceed ka soo bax usoo tiigtay iyana ay naqa darafkiisa ay joogaaniin ayaa wiilasha lays arkay ayaantay dambe naqibaba la qaatay mase geela reer sandhuub sidee yahay golliibu ka madoobaadayo wuxuu ka dhumaaday garanug habeenkii bay u tageen odagii xaalkii bay u sheegeen waa u gartay inay baqeen markaasoo afarhaydatan u tiri oo uu ku digdiiganayo wuxuu yidhi dalcaan laguma furo qalmahaan dhiri ku toosnayne cusub kamaa dhergaan duul wejiga dhooba maariyaaye ninkii dheega midig roori jiray dharas waraadkiiye cidda daba dhukaaliyaa horow tawsxun dhigateen yani weji xumadii horoo aad dhigateen oo geeli aan halka sano ku maqnaayo isagoo aan nirigi ka maqnayn aan keenay faraskii abaalgudka ahaa oad igaga noqoteen kaasaa weji xuma idin horraysay haddee dadka iska daba jooga weligiin xoreyn macluul oo baktiin sidaas way macnuhu uga abaalgoosta waxaa kaleetoo jiray nin la oran jiray siciid qamax inuu faanay oo majeerteen ismaan xamuud warsangeli dhulbahante gabal gabal u kala saarayo nin walba yin turgi maaha ninana haddi kara ma jiro irinay shaaxii ka jeexnayde badda shaqafka inan soo darsaday uunku wada sheegye nuur dhegay shanta lagaga dhigay sharaxalihiisiiye bahgareen shilooto anaa shiday raggeediye shan haddaan ka diilo waanigoo dheef shiruu qalaaye warsangeligu ceelkaan la shubayga kala sheexye naftaa wuxuu ku shersheeriyaa calaa shareeraade isag waasha kamad midan geshiyo midan shirayaaye garaad faarax shooda uma noqon maalin shiramaale shixnade
kasoo rogay fadhiday shucubaani hawle reer jaamacbaa ugu sharbadan shiraan colaadeede usbaasharaato shaygan ka helay iguma shaadayne meeshaan baxisla ula shiro ilaama sheegtaane shafka reer ma guuraanahay talo ku shidaaye raganimaadu waxay noo shaftiri shaacadirireere turgigan u shoolaye nin kale shufay hadalkeese macnaha wuxuu leeyahay turgi maaha oo markaa islaama ugu xoog badan maaha in kalaanu ka haybaysan karaa ma uu jiro haddaanu nahay cali naalaye nuur dhegay baa markaa isaguna u jawaabay tixatan gaaban inkastoo aanan anagu wada ogoon wuxuu yidhi gabadha shinka lagu soo dhiga way shariir malaabe shuxshuxroobah buu igu yaho duni shareeraaye shidadiisa anigan rabineyow shiraac bixiyey ayagoo shariba waxaan hayaa kuniyo shiweyne mashaabacanu xaaraanta iyo shayga baadilaahe mana shidayno aniga ninkanagu shaqaaqoone raganimaado waxay noo shaftiri sharaca dimeede shardigii aan ku ami cagtaadiga shumaysaaye shufadhii aan ka dhigo afkaashoola ku sidaahe sheelaa gojoxo xaabadayn shidii jira taale shax maxaad ka jexda lafiishu xayaadayeele shanshawaydah baad noo tahayn shiriixa haystaaye shanshawaydah baad noo tahayn shiriixa haystaaye mada na shersheerin karaa shiba laakayeeliye gabad dambe laguma arag baa la yidhi siciid qamar